sanadadii ugu dambeysay waxa xumaaday xiriirka ka dhaxeeya Iiraan iyo Mareykanka markii uu Mareykanku ka baxay heshiiskii nukliyeerka sidoo kalena uu saaray cunaqabatayn sida caadiga ahna Iiraan waxa ay ka mid tahay wadamada haysta kaydka gantaalada adduunka ugu badan laakiin waxa isweydiinta leh waxa ay tahay waxay diyaar la tahay Iiraan siday Mareykanka ula dagaalanto dhab ahaantiina waxaynu ka hadli karnaa doomaha iyo maraakiibta iyo gaadiidka dhulkaba laakiin weerarada dagaalka badankoodu waxay ka dhacaan hawada dawladda haysata ciidan cir oo heer sareeyana waxay noqonaysaa hogaamiyaha dagaalka waxayna Iiraan si fiican wax uga fahantay wixii ku dhacay ciidanka Ciraaq sanadii 1960 markii ay weerareen Kuwait waxayna ku dhaqaaqeen inay horumariyaan qaar kamida diyaaradihii dagaalka ee ay haysteen waxaynu barnaamijkeennan ku soo bandhigaynaa qaar kamida diyaaradahaas Adrakhash waxa lagu tiriyaa diyaaradda Mareykanku sameeyay F-14 Tomcat iyo takale ee midowga Suufiyeed sameeyay MiG-29 inay lafdhabar u ahaayeen ciidamada cirka Iiraan sanado fara badan laakiin sanadii 1986 waxay dawladda Iiraan bilowday inay samaysato diyaarado dagaal oo iyada khaas u ah waxayna soo bandhigtay bishii Abriil sanadii 1996 diyaaradii ugu horeysay waana diyaaradda Adrakhash isla sanadkaana waxa ay diyaaraddu dooshay duulimaadkeedii ugu horeeyay waxaana laga dhigay diyaaradda Mareykanka ee F5 waxayna Iiraan sheegtay inay ka samaysay diyaaraddan wax ka badan 100 diyaaradood waxayna diyaaradani muujisay guulo markii lagu sameeyay horumarin iyo dib u cusboonaysi waxayna qaadaysaa diyaaradani hub culayskiisu gaadhayo 32 kilogram Kawsar waxa lagu tiriyaa diyaaraddan Kawsar inay tahay diyaaradii ugu horeysay ee macmal ah waxaana ku rakiban qalabka avionic waana diyaaradaha jiilka afraad waxaana lagu sameeyay siday u dhan tahay diyaaradani gudaha Iiraan waxaana shaacisay markii ugu horeysay sanadii 2018 markii loo dabaaldegayay maalinta samaynta hubka waxayna diyaaradani ku sii caan baxday markii lagu arkay social media madaxweynaha Iiraan oo galaya diyaaraddan waxaana laga sameeyay 2 nashqadood oo kala duwan Qaahir 313 waxay ka mid tahay diyaaradani diyaaradaha ay dawladda Iiraan samaysay waana diyaarad horumarsan waxayna leedahay diyaaradani hal kursi waxayna ka dhuumanaysaa raadarada waxaana la soo bandhigay sanadii 2013 waxayna diyaaradani kaga fiican tahay diyaaradihii hore inay awood u leedahay inay duuli karto masaafooyin hoose iyo inay ku rakiban yihiin qalab iyo raadaro casriya waxayna qaadataa hub casriya oo lagu sameeyay gudaha dalkaas sidoo kale waxay awood u leedahay inay ku duusho kana soo fadhiisato masaafooyin gaaban si taalamida ma qabanayaan raadaradu